dhaqmid sax ah raadinta wadamidii ugu saxsaneed ka dhowrsanaantii ugu nadiifsaneed raadinta xal dhibaato aanad weligaa maqlin ku fikiritaankii ugu sahlanaa raadinta xaqiiqo midii ugu saxsaneed akhriskii ugu macaanaa fariin qusaysa dhammaan aadanaha oo dhan bishaara ka socota boqorka adduunka oo dhan masuq maasuq wax isdabamarin aan lagu samayn karin digniin tii ugu yaabka badneed soo dhaweyn tii ugu qurxooneed ku filin halaagyo ku dhacay qoomam kibray xukun cadaalad midnimo waarta waxa ay ku sugnaadeen kutubka quraanka kitaabka quraanka waxa uu aas u yahay diinta islaamka iyo aadanaha oo dhan quraanka waxa lagu soo dejiyay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku qornaa luqadda carabiga aayadaha quraanku waa 6236 aayadood iyo 114 suuradood kitaabka quraanka waxa lagu soo dejiyay laba magaalo Makka iyo Madiina quraanku waxa uu soo degayay 23 sano oo ah intii uu nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu diinta fidinayay laga bilaabo miilaadi ahaan 609 ilaa 632 kitaabka waxa uu uga duwan yahay kitaabadii hore waxa uu leeyahay magacyo kala duwan magacyo badan waxa kamid ah magacyabiisa al-Qur'aan al-Furqaan al-Kitaab al-Dhikr الوحي الروحي آياتها القرآن كأقول آيات وآيات كجرت سورة البقرة سورة أقول قرآن وسورة البقرة